Burco waxay soo martay marxalado kala duwan sida marxaladihii aasaasanka, marxaladihii gumaysiga iyo gobonimo-doonka, marxaladihii dowlad-dhiska Soomaalida ee bartamihii qarnigii 20aad, marxaladihii dagaaladii sokeeye iyo kala guurkii Soomaalida, iyo marxaladda waqti xaadirkan. Xaaladahaas ayaynu ku falanqayn doonaa muuqaalkeena maanta ee soo dhawaada daawadayaal. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo biir barteena Irmaash. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Bara Dhulkaaga. Barnaamijka Bara Dhulkaaga waa barnaamij aan ugu talagalnay in dhalinyarta iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ay ku kala bartaan ama ay wax kaga ogaadaan magaalooyinka iyo guud ahaan geyiga Soomaalida. Barnaamijka Bara Dhulkaaga maanta waxa uu safri doonaa magaalada Burco, markaas hore u soo qaado Budh iyo Toori, maadaama Budh iyo Toorida aad looga adeegsado magaalada Burco. Magaalada Burco waa xarunta gobolka Togdheer, sidaas la mid ahna waa caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Somaliland. Magaalada Burco waa caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo magaalo madaxda gobolka Togdheer, waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu magaca weyn Somaliland iyo geyiga Soomaalidu ay degto. Waa magaalo shactirooyin iyo xadaarado fara badan loogu yimaado. Magaalada Burco waxaa ka soo jeeda rag fara badan oo magac ku leh Soomaalida dhexdeeda, sida culimo, ganacsato, abwaano, jilayaal iyo aqoon-yahan. Culimada ka soo jeeda magaalada Burco waxaa ka mid ah Sheekh Bashiir, Sheekh Cusmaan Nuur iyo Sheekh Cali Warsame. Dhanka ganacsatada waxaa ka soo jeeda qaar ka mid ah kuwa Soomaalida ugu magaca weyn, sida Maxamed Siciid Dahabshiil iyo Indho Deero. Abwaanada Burco ka soo jeeda waxaa ka mid ah sida labadii abwaan ee walaalaha ahaa Hadraawi iyo Warro Walanwal. Dhanka jilayaashana waxaa ka soo jeeda Sooraan iyo Jawaan iyo kuwo kale oo fara badan. Sidoo kale aqoon-yahanka magaalada Burco ka soo jeeda waxaa ka mid ah sida aabihii tacliinta ummadda Soomaaliyeed Maxamuud Axmed Cali iyo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. Haddaba Burco waxay soo martay marxalado kala duwan sida marxaladihii aasaasanka, marxaladihii gumaysiga iyo gobonimo-doonka, marxaladihii dowlad-dhiska Soomaalida ee bartamihii qarnigii 20aad, marxaladihii dagaaladii sokeeye iyo kala guurkii Soomaalida, iyo marxaladda waqti xaadirkan. Xaaladahaas ayaynu ku falanqayn doonaa muuqaalkeena maanta ee soo dhawaada daawadayaal. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo biir barteena Irmaash Show oo ka mid noqo saaxiibadeena cusub. Haddii aad hore noola joogtayna, muuqaalka sheer leh, aragtidaadana ka dhiibo. Haddii aad like inoo saartana, wax badan ayaad nagu soo kordhisay. Mahadsanidin. Marxaladihii aasaasanka. Magaalada Burco waxay dabayaaqadii qarnigii 19aad ka bilaabantay agagaarka dooxa ama waadiga loo yaqaano Togdheer. Ceelal biyoodyo ku yaalay dooxa ama waadiga Togdheer ayaa sababay inay dadku deegaamaystaan kana samaystaan tuulo yar oo ay ku kala ganacsadaan, ilaa ay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu magaca iyo muuqa weyn geyiga Soomaalida. Xaaladihii gumaysiga. Waqtigii gumaysiga reer Yurub yimid geyiga Soomaalida, magaalada Burco waxay kaalmaha hore kaga jirtay magaalooyinka dadkeedu wejiga qalafsan kala hortageen, aadkana ula dirireen heeryada gumaysiga. Dirirtaasi oo ay wadeen ilaa heeryada gumaysigu ka kacday geyiga Soomaalida, waxaana ka mid ahaa raggii hoggaanka waayey halganka gobonimo-doonka Sheekh Bashiir iyo Sheekh Faarax Cumar, oo hadda loogu magac daray qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Burco sida degmada Sheekh Bashiir iyo degmada Faarax Cumar. Sidoo kale waxaa loogu magac daray goobo waxbarasho si xus iyo xasuus ay ugu noqdaan oo jiilasha dambe ugu xasuustaan xaaladihii dowlad-dhiska Soomaalida. Waqtigii geyiga Soomaalidu qaatay gobonimada ee Soomaalidu u jihaysatay dowlad-dhiska casriga ah, Burco waxay door muhiim ah ka ciyaartay howlihii dowlad-dhiska Soomaalida, noqotayna mid ka mid ah qaabeeyaasha howlihii dowlad-dhiska socday waqtigaas. Marxaladihii colaadaha sokeeye iyo kala guurkii Soomaalida. Burco markan waxay ka mid noqotay dhibanayaasha colaadihii sokeeye ee Soomaaliya ka qarxay dhowr iyo 80aadkii, waxayna u geysteen burbur lixaad leh ilaa la soo gaadhay burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya 1991kii. La dhowray 90aadkii, Burco waxay dhibano u noqotay colaado sokeeye oo ka dhex qarxay dadkii deegaanka, kuwaasi oo markii dambe lagu soo dabaalay xasilooni iyo nabad ku wada noolaansho. Marxaladda casriga waqti xaadirkan. Soo afjaridii colaadaha sokeeye dhowr iyo 90aadkii, Burco waxay noqotay mid qaaday dhabaha horumarka, si joogto ahna ugu tallaabsanaysa horumaro la taaban karo. Burco waqti xaadirkan waa xarun istiraatiiji ah, muhiimna u ah ganacsiga Soomaalida, oo waxaa ku taalla xaruntii ugu weyn ee xoolaha lagu kala iibsado ama silsiladda xoolaha loo yaqaano. Sidoo kale magaalada Burco waxay leedahay magaca naanaysta loo yaqaano gobolkii ragga, taasi oo dad fara badan ay su'aalo iska weydiiyaan Burco ma rag keliya ayaa ku nool, xaggeese ay mareen haweenkii magaalada Burco. Balse magaalada Burco waa magaalo la mid ah magaalooyinka kale, ayna ku nool yihiin rag iyo dumar, balse waxa ay dheer yihiin dumarka kale firfircooni iyo adayg, taasi oo sababtay in magaaladoodii lagu naanayso gobolka ragga. Haddaba waqtigan la joogo magaalada Burco waa magaalo noocee ah? Magaalada Burco waqti xaadirkan waa magaalo istiraatiiji ah, muhiimna u ah Somaliland iyo geyiga Soomaalida oo dhan. Waa magaalo ka kortay dhan kasta, dhinaca dhaqaale iyo dhinaca dhismo ahaanba. Waa magaalo ku naaloonaysa muddooyinkii ugu dambeeyey nabad iyo deganaansho.